inaad isku daydo xumaan oo dhan ka fayo muslimiinta buqdigooda nacaybkooda xiqdiga muxuu ahay yani xumaanta qulubta gasha dad baaba dhibaatada haystaba qalbigiisa inuu xuqad iyo baqdaa iyo xumaan inuu muslimiinta u qaadamayo ma fayoobaan karaba waa cudur intiisa leeg waa cudur intiisa salaamatu sadriga waa waxaadu weyn xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kinikii saxaabiga ahaayee nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada la fadhiya oo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam yadkhulu alaykum rajulun min ahli janna warin ahli janna ba idin soo gali doona hadii la yara sugayba nin baa soo galay gabaa gacanta ku qabto kugu wato soo weysiistay oo weysidii ka daayso maalintii dambe haddana sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam isla ninkii baa soo galay maalintii saddexaad sidoo kale isla ninkii baa soo galay saxaabadii nin kamid ah wuxuu walba ninkani waxa janno loogu marxaati kacay nabigu ugu sheegay inuu janno galay waxa jab badan weeye bal ninkan aan ka wardooni xaalkiisa muxuu sameeyaa uu tago wuxuu ku warniyo odaygii aabahay baan maalmahan isku yara dhacnay bal waxaan rabaa intuu xoga cadhadiisu yaraha adagayso cadho waa la barisay cala waa la barisay inta yaraha cadho baaba'ay bal inaan kula yarasay habeen kula yara joogo marxaban buu soo dhawow habeenkii buu la seexday oo wuxuu sugahay habeenka inuu xilli hore kaco oo salaad far badan iyo maalintiina soon iyo sadaqa far badan waxyaalo inuu ku arko mise ninkii waxba lagu ma hayaba wax badan kuma hayo xilliga dadku salaada u kaca maalintii soon badan ma jiro sadaqa badan kuma soo arkin bal iska suguud caawa inuu caajisnaa waa iska dhici kartee bal hada sugbarina ku fiiri hadii habeenkii labaad la gaaro waa iska sidii habeen saddex waa iska sidii markii dambe uu ishayn waayo wuxuu warniyo waxaan ku weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam baan saddex goor sidaa isagoo le waan maqlay saddexdii goorna adiga aad noqotay kulli waan ku arkay oo muxuu ahay wixii uu muuqdo waan arkay maxaa ku qarsoon buu wuxuu yiri inta aad aragtay weeye wax kale oo ii weheliya ma jiro hadayse ka tagi weydo hadday ka tagi weydo habeen ma seexan buu yiri anigoo qalbiga ruux muslima wax ugu haya Allahu akbar markaasuu fahmay oo wuxuu yiri taas weeye waana mid aan ninna heli karin hadduu sadaqa badan waad bixin kartaa xaj badan waad la imaan kartaa salaada waad badin kartaa soonkaagu waa badan karaa laakiin ma heli kartaa inaad habeenkii seexato adoon qulubtaada muslimiinta u fayowda yaa keeni kara waa adagtahay masalada ayada marka qalbi fayow oo khayr iyo wanaag iyo tawxiid iyo cilmi iyo sunno iyo taaco iyo muslimiinta u fayow insha Allah ta'ala ilaahay aanu la tagno ilaahayna qulubteena ha islaaxiyo oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala tariiqa wanaagsan hayna waafajiyo oo kuwa ilaahay qalbi saliima ula taga Allah inaga dhigo ilaahayna haynoogu kaalmeeyo qulubteena islaaxintooda hana ina waafajiyo khaatimo wanaagsan Allah inagu dilo ilaahay sidoo meesha inagu kulmiyay jannadiisa firdaws Allah inagu kulmiyo axwaasheena Allah islaaxiyo ilaahay tabaaraka wa ta'ala axwaasheena ha islaaxiyo fitankana Allah inaga badbaadiyo جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ كابا المريو كلمات كات كوقيمة بدنية ونيري وين نكفرنا كوا كبدن إنه نيري إن شاء الله تعالى إسنا وأوصى صفري إننا إن شاء الله تعالى إن نكقاضنا ودقوا ونكسنا إن كل جيسنا ديار بيننا هاي إن شاء الله بإذن الله الكريم. شيخ كل سفر بوها هذا الكيسنة هذا اللي قد وأرن ماي إلا أن دور سؤالات أو مركز سيدي استياش ويسوق بيين وكوبان إن شاء الله أن بالبدل الدوي شوكته أن شيخ سؤاشن كوبان وحليه هاي سائلكو حينها مدو مبناية بسم الله الرحمن الرحيم حينها مدو انتانا هرت قارين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه هاي غير الشيب الرد بدله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر حديث تكسر أرورتي الرد بدله ويبدنته حديث دورة markii la soo gaaro maxaa lagu bedelayaa cirrada
laba arrimood hadal kama joogo in lagu bedeli karo guduudka oo xinihi caadiga ah guduudnaa midabka labaadna waa midabka aan hadda inaga u naqaano brownka ama bunniga lagu yiraahdo carabiga yani waa madow iyo guduud isku jira oo markuu ruuxu ka fogiyo waxaad moodaysaa inay timihiisu madow yihiin laakiin markaad ku soo dhawaato waxaad garanaysaa casuus baa ku jira kaas waa maadadii la dhihi jiray katamka xadiista ku yimid ee ku soo arooray katamku midabkiisu noocaas u ah muhiimaduna ma aha geedka laga sameeyo maadada laga sameeyo muhiimadu waa midabka marka saa isugu jira guduudka iyo madowga isku jira waa katamkii way isagana dib male oo waa la isticmaali jiray waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam doodu marka waxay ka jirtaa madowga dikhda ah oo timaha ka dhigaya sidii Ilaahay u abuuray oo kale kaasa marka doodi ka jirtaa ilaa waqtigii saxaabadana waa la isku khilaafsanaa ridwaanullaahi calayhim laba xadiis baa ku soo aroortay xadiis waa xadiidka fi saxiix muslim ee nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii odayga uu yiri cirradiisa badala وجنبوه السواد مدوغنا كفوغي حديث كاس في صحيح مسلم بوكو يالا محدثين طبعا كودنا واسوغن يحي بلي ضد با جيرتو رغ با waxay leeyihiin jumladan وجنبوه السواد ومدرج بلي مدرج بمعنى waxay hadalkii nabiga ma ahe waa lagu daray bلي dodaas jirta ma sugantahay mise ma sugnaa doodi ka jirta محدثين طبعا كودنا inay sugan tahay bay qabaan xadiiska labaadna waa xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam isagana sixadiisa muran ka jiro oo nabigu sallallahu alayhi wasallam qowm baa iimaan doona aakhiru zamaanka oo timaha madoobeynaya ka xawaasil alxamaam sida qooleyda gulgulaheedo kale yaani jannada ma galaan udgoonkeedana ma helaan kaana isagana sixadiisa la isku haysta sheekh albani alayhi rahmatullahi wa muhaddisiinka oriya waa sugan yahay leeyeen rag baa dood ka qaba labada xadiis oo midabka tilmaamaya madowga inuu san banaanayn baa labadaba dood la galiyay kadib waxa loo noqday saxaabada ridwaanullaahi calayhim baa loo laabtay markaas waxa la helay xasan iyo xuseyn ibnay cali sibtay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam inay marsan jireen midabka madowga oo ka sugan tahay nin kale oo saxaabada kamid ah isagana ka sugan yahay isagana sanad xasan oo maleynaya سعد بن أبي وقاص إنه ما هو بنكاس هذا إلى صدق إنه الصحابة ذا مرسن شري بكسو جنته فقهاء هذا إن مركل اللي ما هذا ساس يسوق خلافه ما دام مسألة أي مركل خلافيات هاي أدلة كوسا عرورتين مورن كوتشرو احتياط كوحو كوتشرا يددالكو إن لقيت تجو مدوق الإسكدايو إن مدوق الإسكدايو من باب دينت هذا إن التحدر وقادته حتى مسألة خلافية بها أهاته لكن دينت هذا التحدر وقادته مركا أما جدود كمرصدة أما كتم كاسكو جرصدة مرصدة لكن مدوقة إن أتكفوا تام بان ليه لها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم جزاه الله خير الجزاء. سؤال اللواضي نكون جبينا وحوية وسؤال محاضرة اللي حريدة وليه هاي سائل كني علمك يا ذا الرسي هل كان علمك لقب بالعربي تدريجيا بسم الله الرحمن الرحيم علمك طلب كيسو آداب بوليه أما قابل له طلب بوليه هاي لو ميت كيد ربطين النقط نين عبادات كيسوون الصحنية إن النقط ميت ربطها وقيبتي فرض عين تأها ونروينها تكون قابصت mise waxaad rabtaa nin culimo ama sheekh inaad noqoto labada ka rabtay ku xidhanta meeshaad ka bilaabayso qaybta fardu caynta hadii waa tawxiidka inaad barato shirkiga ka barato sunnada barato bidcada ka barato asaasiyaadka lama wada gaari karo taqriiban oo waxay u baahan yihiin tafaasiil khaas cibaadaadka waajibaadka iyo faraa'idda inaad barato munkaraadka waaweyn yani dambiyada waaweyn inaad barato si aad uga fogaato taa marka wax weeyadu waa qaabkaas laakiin haddaad rabto inaad culimo noqoto oo rabto inaad ku takhasuso shariicada waa ka gedisan tahay marka
waxay noqonaysaa in aad cilmiga u marto jaranjaradii loo mari jiray halkaasay culimmadu waxay u qaybiyaan culuumta labay u qaybiyaan culuumul wasaa'il iyo culuumul ghaayaat ama culuumul maqaasid culuumul wasaa'ilka marna waxay ku itlaaqaan culuumul aalana way dhahaan waa culuumta u adeegaysa culuumta asalka ah iyadu waa adeegta waa jaranjaro aad ku gaadhayso meeshaad rabtay waa culuumtaasi waxaa ugu horeeya culuumta luqada يعني قواعدك نحوذي صرفي بلاغذي أدبك علومتي اللغة كو أبتر سنيس أيضا سيكلا مهم سنو نحوذي صرفك أو مهم سن كدي بلاغذا صور هذا علومتها سمركا وأساسه دي وفره كوما فرما يبا لأن علومتي شرعات القرآن كي السنة دي كتبتي عربي كو قرنت هذا فره مركا هلين كوفر من ميس هل كاسا مركا وحن ربعين داهدو واجي هوري intaan saxwadan iyo baraarugani imaanin waagi hore cilmiga la baran jiray naxwada laga bilaabi jiray laakiin waayahan dambe naxwadii waxaan ku darnay khuraafaadkii aan daadinay baan ku darnay halaga soo reebo khuraafaad ma naxwada saas daraadeed baa saxwadii intay kacday raggii dhalinyarada ahaa sheekh kuma waa ka soo bixi lahayd sababtu waxa weeyaan waxaad arkaysaa mid sunanka iyo saxiixaynka iyo wax ka sii badan ba akhristay تفسيرك أنت صقور كوعش ذي هذا مع ذلك أفري اسمه ساركة لا حب اسمه ساركة صوت معي تاي لأن بيسكي ما دسنا مرة دوسنا أساس كل سنين ولي جاب الدريشة قرع وكر ولي جاب قرع حبكا إيمان مايا ساس تردد هل كاسي وامد وحكمت علومته وسائلك وحكم ذا علمي قالوا يقان مصطلح الحديث علوم الوسائل لأنه وعدكوك الصاري حديث النبي كم محاس سجن محاس سجنين وحكم ذا علمي قال لي هذا أصول الفقه أصول الفقه كنا وحو الصعدة إنه كبروا محاد دليل محانس الدليل هاي سيدو قال إنه كبروا أيضا أما حديث كان سيدي أدو قال الصبح لهاي معناها كتيرة أما حكم كتيرة قواعدي أدخل الصبح لهاي صح ذا يتبو كبرية ووسيلة يستجن وحكم ذا علمي قال له يقان أصول التفسير ويستجن هو أديجي التفسير كهو أديجي وحكم ذا قال كرا علمي قال له يقان قواعدك قواعد الفقهية ويسقون كو أرورنا يا مسائل فقهية جاهي مسائل فربضان وكاكل الدات صنو كعنتو أين قوة قادين والدنبيل أنت تكون ردته ونعطي هالمرات سداد قبصنا يسوي يعني بقولالكم يال مسألة أي هالقاعدة كو قبنيس الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير ثم جيت يعني وحوي العادة محكمة كم يال مسألة بس سداد قبصنا يسوي وضع تابع مركب حكمية هي علوم توصايش حكمية علومتها وصائشة مركا أي مهم تهاي إن مركا ولا تركيزيه كدبنا واحد جود بيسع علوم الغايات كوحديثك فقهك توحيدك عقيدتي إيو تفسيرك علوم تاسي وحلينا مركا علوم الغاية جلسة مركا إنا ترنشرة هلكا كفوشو سيدا أنا كوجادو أيا أجوه الرية تدرجنا هذا شو شيخ شو هذا بدن بيلي هذا لكن أنت أصلا هذا كتب نامي كرا مناسبة وقت وقابن درتي والسلام عليكم ورحمة الله